dunidu waxay ka walwalsan tahay waxa dhici kara bilaha soo aadan. qof kasta ma garan karo nolol iyo geeri waxa uu ku sugnaan doono. waxa uu yiri waxaad u baahan tahay inaad sii diyaarsato toosh batari ku shaqeeya ama karbuuno maadaama koronto iyo internet dunidu aysan ka sii jiri doonin. waxaad u baahan tahay raadiyaha nuuci hore inaad hesho, waa sida kaliya ee ula socon karto akhbaaraadka caalamka. qof walba waa inuu keedsado cunno iyo cabitaan si uu maalmo u sii noolaado. waxa sidaas yiri hogaamiyaha gaashaanbuurta NATO oo dadka uga digay dagaalka saddexaad ee dunida, kaas oo madaxda caalamku ay qabaan inuu bilowday. bilyaneerada ugu caansan oo uu ka mid yahay milkiilaha Facebook waxay bilaabeen inay dhistaan bankaris ama dhismooyin dhulka hoostiisa ah si ay uga badbaadaan hubka nukliyeerka. waxaa la sheegay wadamo kooban oo ay ka mid yihiin South Africa iyo New Zealand inay ka badbaadi doonaan hubka waxgumaada ee nukliyeerka. haddaba Soomaaliya ma ku jirtaa? warbixintan ayaan ku eegi doonaa. sidoo kale Mareykanka oo ogaaday arrin la yaab leh. muuqaalkana sii faafi. dhamaadkii sanadkii tagay madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa sheegay in dunidu ay qarka u saaran tahay dagaalkii saddexaad ee dunida, qof walbaana ay tahay inuu hadda u sii diyaar garoobo. bilowgii sanadkaana waxaa shaaca ka qaaday madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo sheegay in uu dagaalkii saddexaad ee dunida uu ku soo wajahan yahay caalamkan. laakiin Turkigu waxa uu sheegay in goor horeyba uu bilowday dagaalka saddexaad ee dunida. doodu ma aha inuu bilowday dagaalka iyo inuusan bilaaban, laakiin dunidu waxay ka walwalsan tahay in maalmaha soo aadan la isku adeegsado hubka waxgumaada ee nukliyeerka. Mareykanka iyo Ruushka habeenkii la soo dhaafay waxay soo dhaqaajiyeen gujisyada xambaara nukliyeerka oo uu mid kasta soo dhigay bartii laga ridi lahaa. haddii uu bilowdo dagaalka nukliyeerka, waxa lagu sheegay in dunidu ay wada holci doonto marka laga reebo dhowr wadan oo lagu badbaadi karo. waxaa ka mid ah wadamadaasi dalalka South Africa, New Zealand, qaybo ka mid ah Indonesia iyo sidoo kale jasiirado yaryar oo dunida ah. Soomaaliya kama mid aha wadamada ka badqabi doona hubka waxgumaada ee nukliyeerka iyo dagaalka saddexaad ee dunida. sababtuse gadaal ayaad ka ogaan kartaa. waxaa sidoo kale la sheegay in lagu badbaadi karo kaliya dhismooyinka dhulka hoostiisa ah, kuwaasoo lagu tilmaamay badbaadada ugu fiican. Mark Zuckerberg oo ah milkiilaha shirkadda Facebook iyo qaar ka mid ah bilyaneerada kale ee caalamka ayaa bilaabay inay dhulka hoostiisa ka samaystaan qasriyo waaweyn oo oksijiintooda iyo adeegga cunadoodu ay u dhammaystiran tahay si ay waqti badan ugu noolaadaan. qof kasta oo dunida guudkeeda saaran waxa uu ka fikiri lahaa sida uu ku badbaadi doono, laakiin dunida saddexaad ama Afrika kama diyaar garoobin sida muuqata. warbixin la yaab leh oo uu soo saaray Mareykanka ayaa sii kicisay xaaladda dagaalka saddexaad ee dunida markii Mareykanku sheegay in dadka Ameerikaanka ah maskaxdoodu Ruushka u daatay oo uu weeraray. hub casri ah oo uu Ruushku adeegsaday ayaa maskaxda ka dhaawacay in ka badan 2,000 oo diblomaasiyiin Mareykan ah, kuwaasoo qaarna la waashay qaarna ay xanuun la seexdeen sida lagu sheegay warbixinta. sheekadan oo dunidu ay la yaaban tahay ayaa ah hub casri ah oo Ruushku adeegsaday, kaasoo lagu sheegay laser dadka maskaxdooda shucaac ku fura. warbixin gaar ah ayaan ka samayn doonaa, laakiin arrintan ayaa sii kordhisay cabsida dagaalka saddexaad ee dunida iyo adeegsiga hubka waxgumaada. waddan badbaadaya ma jiro ilaa oo uu ka badbaaday in saldhigyo militari ay ka samaystaan Mareykan iyo Ruush. waa sababta Soomaaliya xataa aysan uga badbaadeen gantaalada Ruushka, maxaa yeelay Mareykan oo bartilmaameed ah ayaa saldhigyo militari ku leh. bal adigu aragtidaada hoos nagula wadaag, muuqaalkana laag saar oo sii sheer garee.